السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق التمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله walaalayaal, ilaahay baan ku mahadinaynaa ina waafajiyey inaan anakuna aanina soo buuqano, ilaahay dartii aan ii soo buuqano, inkuna baaqaa diinada laynii fidiyey aada soo ajiibtaan. ninku sidaad ogtihiin ba aad ka warqabtaan waddankii ayaan ka imanay, qaaradan dadkeenu ay soo galeen hadafka aan ka leenahay aan u imanay inaan degno maaha, inaan ka shaqaysanana maaha, keliya waxaan u imanay inaan idinkayna soo buuqano, deedna aan dardaaranno oon ku dardaaranno wasiyadii ilaahay casa wajalla uu inagula dardaarmay inaka iyo dadkii muslimiinta ahaayee inaka inaga horreeyeyba. wasiyadaasina waa ilaahay taqwadiisa. walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah. ilaahay casa wajalla inaka iyo dadkii inaga horreeyey ee diinaha loo soo dejiyey dhammaan waxaa ilaahay kula dardaarmay inay ilaahay ka baqaan. gabadha muslimadda ee muuminadana dadkaa ilaahay uu la dardaarmay ayay ka mid tahay, oo nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam baa lagu yidhi: yaa ayuha nabiyu ittaqi llah. ka nebigow ilaahay ka baq baa lagu yidhi. meesha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu yidhi ilaahay ka baq oo allahaagii ku abuuray ka cabso, innagana markaa maxaad u malaynaysaan? taqwadu markaa waa wasiyatullah. wain takfuruu fa ina lilahi maa fi samaawaati wamaa fi lard. haddaad gaalowdaan baa ilaahayna leeyahay, ood ilaahay aad ka jeesataan, ilaahay inima baahna ininka, bal ininka ilaahay u baahan. ilaahay waxa uu ahaaday maa fi samaawaati wamaa fi lard. dhulka dhexdooda iyo samaawaadka dhexdooda wixii makhluuq ahaaday oo dhan ayaa ilaahay u ahaaday, oo way tasbiixsanayaan. wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walakin laa tafqahuuna tasbiixahum inahu kaana xaliiman gafuura. shay ma jiro allada dhexdeeda yaalla ilaa ilaahay buu u tasbiixsanayaa. dhagaxdu ilaahay bay u tasbiixsanayaan, dheertuna ilaahay bay u tasbiixsanaysaa, laakiin inaku ma arkayno mana kasayno. oo nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam waa kii odhan jiray: innii la aclamu xajar. waxaan aqaanaa buu nebigu yihi dhagax, inta aniga aan lay soo saarin kolkaan dhagaxa anag maraayo islaami jiray buu yihi. magaalada madiina bartamaheega isagoo nebigu maraayo calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa nebiga ku soo dhaqaaqay awr. saxaabadu markaa waxay u maleeyeen awrkaasi nebiga inuu dhib u geysanayo, walaakiin nebigeenna markuu usoo dhawaaday buu lilma sii daayey. markaa buu nebigu sala allahu calayh wasalam saxaabadiisii ku yidhi: awrkan ayaa iska leh. nin hebel hebel la dhaho ree madiino ansaariya awrka iska leh. markaa buu nebigu yihi: iigu yeedha. yarkii yaraabaa loo yeedhay. awrkaagan ilaahay baa kuu sakhiray, uu kaa itaal weyn yahay adiga,
haraatidiisoo keliya ka soo hadhi maysid, ilaahay baa kuu sakhiree ilaahay maad kaga cabsatidaa buu nabigu ku yidhi. oo laba shay buu kaaga cabanayaa. markaad raraysana maaragtanay rarka waad ku culaysisaa, marka uu daaqayana xilli ku filan ma siisid buu nabigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam. waa awrkii ayaa ilaahay garanaya oo nabigiisa moxamed calayhi salaatu wasalaam garanaya, oo dhagaxdaa ilaahay xusaysa, oo dhirta ayaa ilaahay xusaysa tabaaraka wa tacaala. allahu rabb alcaalamiin. laakiin inaku ma kasayno, ma ogin taas. ilaahay baa og. marka ilaahay haddaan ka baqno, ka cabsano, oo gabadha muuminada muslimaddu ilaahay ay ka cabsato, oo ninka muuminkuna ilaahay uu ka cabsado, cabsadaasi inakunba waxay noo tartay ogaada. haddaan caasinana ilaahay waxba kama naaqusmayaan. laa tanfacuhu daaca walaa taduruhu macsiya. daacadda ilaahay la adeecayana ilaahay waxba uma kordhiso, cisyaanka ilaahay la caasinayana ilaahay waxba kama dhinto. ilaahay waa qani, isagaa inaga deeqtoon, inooma baahno. innakaasa ilaahay u baahan. inaad jiifato ilaahay baad u baahan tahay, inaad cunno aada cunto ilaahay baad u baahan tahay, inaad socoto ilaahay amarkiisaad u baahan tahay, inaad hadasho ilaahay amarkiisaad u baahan tahay, inaad wax maqasho amarka ilaahay baad u baahan tahay. ilaahay baan u baahannahay inakuyo ilaahay inakaynooma baahan. walilaahi maa fi lsamaawaati wamaa fi lard wa kaana allahu ganiyan xamiida. ilaahay casa wajalla waxaa u ahaaday makhluuqa samaawaadka ku nool oo dhan ilaahay bay caabudaan. samaawaadka ilaahay waa lagu caabudaa, arada dusheeda ilaahay waa lagu caabudaa. adat isamaau waxuqa lahaa an ta'ita buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam. samada ayaa soo ciirtay buu nebigu yidhi, inay soo duusto ay soo ciirtana xaq bay u yeelatay buu nebigu yidhi. samada meel 4 farood la dhiga kama bannaano ilaa hadday jirto malag baa ilaahay u sujuudsan oo ilaahay xusaya. wallaahi buu nebigu yihi low taclamuuna maa aclamu ladaxiktum qaliilan walaa bakaytum kathiira. wallaahi baan ku dhaartay buu nebigu yihi haddaad ogaan lahaydeen waxaanugu aan ogahay, in yarna waad qosli lahaydeen, inta badanna waad ooyi lahaydeen. nacam, wuu ogaa nabigeenu calayhi salaatu wassalaam. samaawaadka in ilaahay lagu caabudo nebigeenu waa ogaa, makhluuqa dhulka jooga ilaahay inay caabudaan nebigeenu waa ogaa. laakiin dadka maaragtaane nebi maxamed ilaahay iyo nebiga dhabarka u jeedinaya ee jaaxidiinta, wamaa yajxadu biaayaatina ila aldaalimuun baa ilaahay yidhi. dadka aayaadka ilaahay casa wajalla inkiraya, ilaahay way cilmiga ay arkayaan ilaahay waa barayaa. samada iyo dhulka iyo makhluuqaadka u dhexeeya makhluuqaadkaasoo dhan waxay ku barayaan ilaahay inuu keligii uu yahu keliga adduunka uu maamulo. laakiin aayaadka ilaahay waxay la inkirayaan wax kala maahine waa daalimiin baa ilaahay yidhi. dadka jaaxidiinta waa daalimiin, leanna qofka daalimka unbaa ilaahay casa wajalla ka jeesta mooyaane qofka muuminka ee muslimka mar walba ilaahay buu xasuusan yahay. hadduu cirka tagana ilaahay buu xasuusan yahay, hadduu dhulka joogana ilaahay buu xasuusan yahay, hadduu dhallinyaro uu yahayna ilaahay buu xasuusan yahay, hadduu qof weyn uu yahayna ilaahay buu xasuusan yahay, hadduu faqiir yahayna ilaahay buu xasuusan yahay, hadduu qani yahayna ilaahay buu xasuusan yahay, hadduu bukana ilaahay buu xasuusanayaa, hadduu caafimaad qabana ilaahay buu xasuusanayaa, dhallinyarnimadiisa ilaahay buu ka xasuusanayaa, da-weynidana qofka muslimku ilaahay buu ka xasuusanayaa. ilaahay casa wajalla ayaa inagu lahaa walaa takunuu kaaladiina nasuu llaha fa ansaahum anfusahum ulaa'ika hum lfaasiquun. ha noqonina baa layidhi kuwii ilaahay halmaamay, allihii abuuray bay halmaameen, ilaahay wuxuu u abuurtay bay halmaameen, aakhirada loo socdo bay halmaameen, shareecadoodii iyo diintii loogu talagalay inay ku dhaqmaan bay halmaameen. fa ansaahum anfusahum baa ilaahay yidhi. deedna ayaka wixii naftooda maslaxadoodu ay ku jirtayna waa la dhaafiye, waa la halmaamsiiye baa ilaahay yidhi. qofku ilaahay abuuray hadduu garan waayo waxaad ogaataa isagana dantiisa waa la garan marin. hadduu ilaahay qofku uu gartana noloshiisa adduunyadiiyo ta aakhiro waxay ku hagaagaysay ilaahay baa tusinaya.
walaa takunuu ha noqonina baa laleeyahay ayaa laleeyahay adiga lagu leeyahay anaa laygu leeyahay kuwa ilaahay halmaamay ha noqon makhluuqay ku mashquuleen inay bartaan laakiin ilaahay khaaliq ahaa way iloobeen. dadka u badana maanta adduunyada jooga ilaahay garan maayaan laakiin makhluuqay garanayaan, nolosha adduunyaday garanayaan ee aakhirada garan maayaan, qiimaha ashyaada iyo lacagtu ay leedahay garanayaan laakiin camalka wanaagsan qiimihiisa garan maayaan, dhibaatada adduunyada taallay garanayaan laakiin dhibaatada aakhiro sugaysa garan maayaan, nicmada adduunka taallay garanayaan laakiin nicmada aakhirada taalla garan maayaan. marka gabadha muslimada ee mu'minada waxaa laga rabaa inay noqoto gabadh ilaahay ka baqaysa, maadaama taqwadu ay tahay ilaahay wasiyadiisii, waa dardaaranka ilaahay casa wajalla uu bini aadamkao dhan ilaahay uu jeediyey. yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. ilaahay baa inagu leh dadkii ilaahay nebiga rumeeyeyow, ilaahay waxaad uga baqdaan cabsidii ilaahay jalla wacalaa xaqa uu u lahaa in looga baqo uga baqa baa ilaahayna leeyahay. walaa tamuutunna ha soo dhimanina ilaa wa antum muslimuun, ilaa ininkoo muslimo hoggaansanoo toosan mooyaane ha soo dhiman. dhimashadaadu adigu waa ijbaari weeyaan, qasab baad ku dhimanaysaa, bimacnaa ajashu yayna kuu imani weeyaan oo yuuna malakulmoodku nafta kaa soo doonin ilaa adoo muslimo hoggaansanoo xarigga ilaahay haysta mooyaane. dardaarankaasi waa dardaarankii ilaahay casa wajalla, waa dardaaran nebi ibraahim calayhi salaam iyo nebi yacquub iyo nebi isxaaq intuba waxay u dardaarmayeen awlaadooda. wawasaa biha ibraahimu baniihi wa yacquubu yaa baniya ina allaha istafaa lakum addiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyo nebi yacquub dhammaan awlaadooda markay la dardaarmayaan waxay kula dardaarmayeen ha soo dhimanina ilaa ininkoo muslima mooyaane. bimacnaa qofku hadduu adduunyada ka baxo uuna ka baxayaa qasab weeyaan, dhimashadu iyo maahan wax ikhtiyaariya, waa dhimashadu waa ijbaariyo waa qasab oo inaad dhimato maaragtaane waa waxaad adduunka u joogto, inaad dhimataad u dhalatee inaad noolaato ood adduunka weligaa xayi aad ku ahaato umaad dhalana ogow. ilmahaad dhashay beritoola uu dhimanayaa, adiga tii ku dhashay way dhimatay, aniga tii i dhashay way dhimatay, allaha u naxariistee. sida waayeeladeenni waalidadeenni qaarkood adduunka ay uga maqan yihiin ay u baxeen ayaad adiguna maalin uga bixi doontaa. marka dhimashadu waa ijbaari weeyaan, waa qasab ee ikhtiyaari maaha. lidaalika waxay nebiga ibraahim calayhi salaam iyo nebiyadii oo dhan awlaadooda ay kula dardaarmayeen walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. ha soo dhimanina haddaad dhimataase ininkoo muslimo hoggaansan oo ilaahay amarkiisa haysta soo dhinta bay lahaayeen. haddii nebi ibraahim calayhi salaam iyo nebi yacquub dhashoodii dardaaranka ay uga tegeen, ininkana dardaaranka waxay nooga tegaya allahu rabbulcaalamiin baa inooga tegay. ilaahay baa inaga dardaarmay inakana oo inagu le yaa ayuha aladiina aamanuu, duulkii alliya nebi rumeeyayow, itaquu llaha ilaahay ka yaaba, ilaahay ka baq. taqwadu waa maxay? ilaahay adeec, ha caasin, ilaahay ku shukri, ha ku kufrin, ilaahay xasuusnow, ha halmaamin. ilaahay adeec oo amarka ilaahay yeel, oo haddaad ilaahay adigu amarkiisa aada yeesho waxaad ogaataa noloshaadii baad toosisatay ogow. waman yattaqi allaha yajcal lahu min amrihi yusra. ilaahay baa le qofka alla ka baqa, qofka ilaahay ka baqa ilaahay ka cabsada baa ilaahay leeyahay noloshiisoo dhan waxaan ka dhigaynaa fudayd. lacagtu nolosha ma fududayso, dhulkaaga oo laga tago dhul kale la tagaana nolosha kuma fududaato. macluumaadkan adduunyada aqoontan adduunka oo lagu talax tagana nolosha kuma fududaato. boqortooyo iyo masab iyo madaxtinimo lagu fadhiisana nolosha kuma fududaato. nolosha waxay ku fududaataa waa ilaahay cabsidiisa. markaad ilaahay jalla wacalaa aada raalli geliso ee ilaahay ku abuuray aada adeecdeed ilaahay aada caabudid, markaasay noloshaadu adigana kuu fududaan. nolosha diintaa fududaynaysee lacagtu nolosha ma fudaydisee ogow. waman yattaqi allaha yajcal lahu min amrihi yusra. qofka ilaahay ka baqa, cabsida ilaahay macnaha ugu yara culammadu ay ku macnayaan waxay yidhaahdeen wixii macruufa ilaahay ku farana waa inaad la timaadaa, wixii munkara ilaahay uu kaa reebana waa inaad ka reebtoonaataa. salaadu waa amar, xijaabku waa amar, gabadha muslimaddu inay gurijoog noqoto waa amar,
ninkaaga inaad adeecdo wixii wanaaga aad ku adeecdona waa amar labadaada waalid inaad baari u noqoto waa amar gabadh asturan oo mu'minada oo isdhowraysa inaad noqotona waa amar amarka ilaahay qofka qaata noloshiisa waxaa looga dhigayaa fudayd ilaahay baa kuu fudaydinaya bimacnaa maciishadii kugu adkaani mayso guurku kugu adkaani maayo tarbiyadda ilmahaagu kugu adkaani mayso nolosha adduunku waxay kuu noqonaysaa wax dhib yar waa markhaatima doonto waddannadan iyo mujtamacaadkan aad dhex timaadeen iyakoo inaga dhaqaalo badan oo inaga maado badan cidhiiriga ay ku jiraan ay ku nool yihiin anuu inii sheegi maayo ininkaa iiga warramay dadkiina dhulkan yimiday ayaa ka warramaya ummaddan aad u timaadeen rafaadkii cidhiiriga ay ku jiraan laakiin marka horeba annaku waxaan haynay cilma alyaqiin waxaan haynay waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira qaala kadalika aatadka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyowma tunsa ilaahay baa qur-aankiisa horeyba noogaga sii warramay waaqiciina maanta waad aragteenoo waad soo taabateen qof allihii qofka ilaahay ka jeesta daacaddiisa qofka ilaahay macrifadiisa diintiisa ka jeestaba ayaa la yidhi adduunka dusheeda noloshiisu waa cidhiirya ha ogaado maalinta aakhiro ee la soo saarana isagoo waxba arkaynin ayaa banka qiyaama la soo joojin markaasuu odhan doonaa rabbi lima xashartanii acma ilaahow maxaad ii soo saartay indhala-aan adduunka dusheeda waan indhaqabo waxbaan arkaayey oo qof wax yaqaano oo wax bartay oo culumtan teknolojiga aad u furtay oo waxa bini aadamku ay manaafacsadaan qof soo saaray oo wax yaqaano oo wax arka ayaan ahaaye waa maxay ilaahow indhala-aantan aad igu soo saartay markaasaa lagu odhan doonaa ilaahay aayaadkiisii oo dhan baa kuu yimiday waad ka jeesato waad is ilowsiisay adigana maanta waa lagu iloobay baa lagu odhan doonaa adduunka dusheeda haddaad allihii ku abuuray aad ilowday nolosha lagugu talagalayna haddaad ilowday adigana maanta waa lagu iloobaa la odhan doonaa halkaaba lagaga dhaqaaqi doonaa marka cidhiidhiga waxaa lagaga baxaa waa diin cidhiidhiga noloshu hadday diin ka weecatana waxay ku dhacdo cidhiidhi ogaada diin hadday nolosheennu ay saaran tahayna innaka la calaa hudan mustaqiim waa hanuun waa dariiqii mustaqiimkaad saaran tahay marka waad ogtiinoo baabuurka hayweyga hadduu in yar ka weecdo asaga iyo dadka saaranba khatar bay galayaan bini aadanka ilaahay waddu u sameeyey waddo hadday bini aadamku waddada ka leexdaan ayakiiyo waxa saaranba way burburayaan ogaada imaa yaatiyannakum minii hudaa faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun allahu rabu alcaalamiin aadam calayhi asalaam oo aabbaheena iyo hooyadeen xawaa markii arlada loo soo dhaadhiciyey jannada laga soo dhaadhiciyey ayaa ilaahay ku lahaa aniga xaggayga hanuun baa iniiga iman doona hanuun waa shareecad dhaqan diin aad ku dhaqantaan baan inii soo diri doonaa haddii hanuunka ay raacaan awlaadaadu baa lagu yidhi ciddii hanuunkaas soo raacda adduunka dusheedana wax ka cabsiisa arki mayso aakhirana kuwa murugooda maaha baa lagu yidhi haddaad dooni inaad cabsoonin haddaad dooni inaanad murugoonin haddaad dooni adduunka dusheeda inaanad ku cabsanin aakhirana aanad ka murgin haddaad doonaysid haddaad dooni labada daaroodba inaad ku liibaanto hanuunka ilaahay soo dejiye raac hanuunkaasina muxuu ka kooban yahay xaqa ilaahay buu ka kooban yahay kow xaqa ilaahay ku abuuray ha iloobin allah ha iloobin allah waa wasiyadii nebi nuux calayhi salaam oo inankiisa kula dardaarmuu ku lahaa labana waan kuugu dardaarmayaa labana waan kaaga dardaarmayaa buu ku yidhi labana waan kugula talinayaa inaad qaadato labana waan kaaga talinayaa iyo ka dheerow labadaan kugula talinaya waxa weeyaan allah wadaara alaakhira allihii ku abuuray ha iloobin daarta aakhirana ha iloobin labana waan kaaga digayaa alkibru waalcujb kibirkana iska ilaali kibirka iyo iscajabinta labadana waan kaaga nasteexeeye iska ilaali buuhi labadaas waa labada bini aadamku dunuubta waaweyn ay ku galaan weeyaan qofka mutakabirka ee kibirka badanna janno ma galo qofka iscajabiyana xaqu qalbigiisa ma dega baa la yidhi ilaahayna ha iloobin allihii ku abuuray daarta aakhirana ha iloobin ukhtilmuslima gabadha muslimadda waa inaad ogaataa xaqa koobaad waxaa kugu leh allihii ku abuuray baa kugu leh allahu rabu alcaalamiin ha iloobin ilaahay kuma iloobina siyaad ku iloobi adiguba ilaahay jeclow khaasatan innaka ilaahay waa ina jecel yahay markuu ilaahay naga dhiga muslimiin
diinta islaamka ee xaqa ilaahay nagu leeyahay ina bartay ee xaqa nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam ina bartay ee xaqa labada waalid inagu leeyihiin ina bartay ee xaqa ninkaadu kugu leeyahay ku bartay ee xaqa jaarkaadu kugu leeyahay ku bartay ee xaqa qaraabadu kugu leedahay ku bartay ee xaqa ilmahaagu kugu leeyahay ku bartay diinta macaan ee xuquuqda khalqiga alle oo dhan kuu tilmaamaysa diinta macaan ee noloshaada waxay ku toosayso dhan ku bartay ilaaha ku siiyey ee kuugu nicmeeyey ilaaha ha iloobin ha iloobin jeclow ilaahay oo ilaahay jacaylo ku caabud oo aamin ilaahay caza wajalla oo qadarka ilaahayna aamin waa keligii ilaahay haddaad baahatana baahidaada keligii u sheego asmaa binta abi bakr sidiiq radia allahu canhuma ayaa ninkeedii zubayr binu cawaan baa safar buu ka aado uu baxay ayadoo inanteeda khadiijo markaa xambaarsano caloosha ku haysato markaasaa sahaydii ay uga tegay baa ka goodo ka dhammaatay gabadh yahuudiyadoo deris ay ahaayeen baa neef qalatay dherigaa la karinaya carfigiisiiba aqalka iigu yimidda bay tidhi deedna markaasaan maaragtaanay gaajadii iyo baahidii aan u qabay cunnada intay igu ziyaaday ayaan wareego waxaan ku yidhi qori daba oon dab ku shitay isii baan ku idhi bay tidhi lol fiirso waa sifaadka gabadha muuminadda uu cumar ku ammaanay mu'minatun hayinatun layinatun cafiifatun gabadha muuminadda sifaadkaasuu cumar bnu khataab ku sheegay waa gabadh muuminada hayinatun oo dabacsan layinatun oo jilicsan waa gabadh hayina ah bimacnaa ninkeeda u hoggaansan wixii wanaag oo dhanna maaragtaane si dhib yar ku qaadata layinatun jilicsan oo dabacsan oo ninkeyga u dabacsan noloshana u dabcisa awlaaddeeda tarbiyaddeedana u dabacsan dadka jaarkayga u dabacsan qaraabadeeda u dabacsan cafiifatun dhowrsoono hadday baahan tahayna baahideeda cidna aan u sheegin asmaa binta abi bakr radia allahu canhuma gabadhii dariska yahuudiyadda intay u wareegtay bay ku tidhi qori dabaan u baahanahay isii dab baan ku shidanaya markaasay tiri ujeeddadaydu qoriga igama yahayna waxay iga ahayd ha istiraada gabadhan waa deriskaagii ninkeediina safar buu kaga maqan yahe adiguna waa adiga neef qashee bal dheriga wax uga dar ha istiraado ayaan islahaayo xaqaaga maaragtaane ha garato laa natanaw ahlalkitaab maadaama ahlalkitaabkuna diintii nebi muuse ay ku abtirsanayeen xaqul jaarka waxbay ka yaqaaneen laakiin ilamay fahmina bay tidhi qori daba unbay iisoo dhiibta bay tidhi markaasaan ku noqdo waxaan ku idhi bay tidhi qorigii dabka waa iga baktiye haddana bal qori kaloo daba ii dhiib haddana imay fahmin markii labaadna qori daba unbay ii dhiibtay tidhi cajiib haddana markii saddexaad baan ku noqday haddana qori daboo saddexaad bay ii dhiibtay tidhi haddee toole markaas ayaan gurigeyda intaan ku soo noqday ilaahay baan baryo waan ooyey tidhi oon idhi ilaahow ninkaygii yaa rabbi ninkaygii ilaahow diinkaagu u socday oo safar diineed buu igaga maqan yahe baahideeda adiga unbaa ii dabooli kara ilaahu baahideeda ii dabool bal gabadhaas iyo gabdhaheenna maanta isbarbar dhiga iyaku raggooguna diin bay u safrayeen dumarkooduna aqaladooda iyagoo ku sugan ayay gaajada iyo rafaadkii u adkaysanayeen nolosha adduunyadu inay yar tahay bay fahmeen inay aakhiradu ay weyn tahay bay garteen deedna adduunka dusheeda rafaad kastoo la soo darsay way adkaysteen wayna ka baxeen iyagu guul bayna kaga baxeen guul bay kaga baxeen oo way guulaysteen iyagu ninkii yahuudigii ee neefka loo qalay ayaa gurigiisii kolkuu soo galay ayuu xaaskiisa ku yidhi hal dakhala calaykum axad qof maynii soo galay markaasay ku tiri haa gabadhan dariskeenna carabiyadda ayaa ii timidoo dab bay i weydiisato qorigii dabkaana waa siiyey ninkii yahuudigii wuxuu yidhi dheriga aadii karisay ilaahay baan ku dhaarto wax ka cuni maayo ilaa gabadha muslimadda carabiyadood wax uga dartid mooyaane idaa sa'alta fas'al illaaha waida istacanta fastacin billah buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam yaa ghulaam innii ucallimuka kalimaat cabdillaahi bnu cabbaas radia allahu canhuma oo ghulaam oo wiil dhallinyaro ah ayuu nebigeennu calayhi salaatu wasalaam oo xadiiskaa u sheegayaa fii xajati alwidaac fii yowmi carafa markaa buu nebigu ku yidhi yaa ghulaam wiilkan yarow
kalimaad baan ku barayaa ilaahay ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalinaya ixfad illaha tajidhu tujaahaka baa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay ilaali bimacnaa waa maxay amarka ilaahay ilaali hal allihii halkaad u kacda adigana ilaahay baad ka heli doontaaye ilaahay baad ilaalin waxay ka dhigan tahay waajibaadka ilaahay ku saara ilaali oo amarka ilaahay ilaali gabadhu muuminaddu inay caqiidadeeda iimaankeyga inay ilaashato waa amar ilaahay hadyiga nebigeyga moxamed calayhi salaatu wasalaam inay ilaashatona waxa weeyaan waa amar ilaahay caza wajalla salaada inay gabadha muuminaddu ay ilaaliso awqaadeeda waa amar ilaahay tabaaraka wa tacaala asturka iyo gurijoog inay gabadha muuminaddu noqotona waa amar ilaahay tabaaraka wa tacaala haddaan ilaahay amarkiisa aad ilaalisid adigana ilaahay baa ku ilaalina ogow ixfad illaaha ilaahay amarkiisa haddaad ilaaliso adiga ilaahay baa ku ilaalin ilaahay meeshuu kugu ilaalin meel kastoo jegta ilaahay baa kugu ilaalin dhulka ilaahay baa iska leh cirka ilaahay baa iska leh biyaha dhexdooda ilaahay baa iska leh buuraha dhexdooda ilaahay baa iska leh walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lard wa kaana allahu samiican basiira ilaahay tabaaraka wa tacaala samaawaadkii araadiinta dhexdooda wixii ku sugnaadoo dhan asaga ayaa iska leh sifaadka ilaahay uu leeyahayna waa maxay waa samiic weeyaanoo makhluuq oo dhan hadday ilaahay ay baryaan oo ilaahay baahidooda u sheegtaan ilaahay waa ka maqlayo weeyaan waana ka arkaayo weeyaan meeshaad doonta joog zamankaad doonta joog dadkaad doonta dhex joog haddaad amarka ilaahay aad ilaalisid adiga ilaahay baa ku ilaalin weliba ilaahay caza wajalla maaha rabbigeen caza wajalla midaad afriiqiya kaga timaadeene allahu rabu alcaalamiin waa macnaa wa huwa macakum aynamaa kuntum wallahu bima tacmaluuna basiir meeshaad doonta joogoo teg ilaahay waa macaago waa kula jiraa haddaad barida baryadaada uu aqbalayaa haddaad adeecdana ilaahay raalli buu kaa noqonayaa haddaad raalli geliso ilaahay isaguna uu ku raalli gelin haddaad gargaar ka dalbatana ilaahay adigana waa kuu gargaari asmaa binta abi bakr sidiiq radia allahu canhuma ilaahay bay bariday baahideeda ilaahay baa u daboolay maantana dadka muslimiintu dul gaala intay ku soo qaxeen ayo been bay sheeganayaan been bay sheeganayaan siday hunguriga u helaan hunguriga dhuuni yabiicu diinahu bicaradin min addunya dad badan oo muslimiina maanta adduunyada dusheeda waxay ka samaynayaan nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa 1400 sano ka hor sii sheegoo yidhi zaman baa soo socda buu nebigu yihi zaman oo qofku muuminnimu ku waabariisan gaalnimana uu ku galabaysan gaalnimana mu'minnimana uu ku galabaysan gaalnimana uu ku waabariisan waana zaman buu nebigu yidhi hee diintiisa dhan qofku wuxuu dhaafsan doonaa buu nebigu yihi lacag yar buu dhaafsan doonaa dad badanoo maanta muslimiina inay caloosha buuxiyaan bay been u sheegayaan inay maaragtaane dhar yaroo fiican ay xidhaan ayay been u sheegayaan inay ciyaalkoogu u cayilaan ayay been u sheegayaan wamaa calimuu maynan ogaanin qofka beenaalaha ilaahay inuu necab yahayna ma ogaanin asidqu yunji walkidibu yuhlik buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam runtu qofka way nabadgelisaa beentuna qofka way halaagtaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam muuminku been ma sheego gabadha muuminaddu been ma sheegto waa la weydiiyey nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi yaa rasuula allah qofka muuminku bakhayl ma noqon karaa waa noqon karaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka muuminku fula ma noqon karaa wuu noqon karaa buu nebigu yidhi qofka muuminku been ma sheegi karaa markaa buu nebigu yihi may been ma sheegi kara buu yidhi iimaanka iyo beentu labada isma galaan billaahi calaykum maaha ininka xumaana ininka naguma tuhmayno laakiin waxaa nagu maqala inay jiraan gabdho dhulkeennii iyo dadkeennii ka soo jeeda oo si waddankan lacag ay uga helaan raggooda ku leh war waad ila nooshahay baan qoraynaa xagga dowladda saan lacag uga helno ee aqal gooniya deg adiguna ilaahay muuna ku arkin baan moodi ilaahay maa laga dhuuman karaa laa yakfaa calayhi shayun fi lardi walaa fi samaa ilaahay caza wajalla samaduna ilaahay waxba kama qariso dhulkuna waxa ku dhex jiro ilaahay kama qarin karo asmaa binta abi bakr sidiiq radia allahu canhuma gaajadeedii way qarsato way adkaysatay baahideedii ilaahay bay u sheegatay ilaahay baahideedii waa u daboolay yahuudigii baa ilaahay dubba ugu soo dhiftoo la yidhi u khidme u adeeg isagii baa yidhi cuntadaa aqalka aad ku karisay
wallahi inaan dherigaa waxba ka dhadhamin ilaa gabadha carabiyadda ku timiday oo aad wax uga dartid mooyaane. markaasaa saxni dhan oo hilib iyo maraqa la ii soo diro la ii keena bay tidhi, anoon cidna aanan weydiisan, laakiin ayay weydiisatay, ilaahay bay weydiisatay. cafaaf bay lahaayeen, cafaaf allahayna siiyeenna kana. sabir bay lahaayeenoo qadarkay aaminsanaayeen iyaku, sabir. umu sulaym radia allahu canha ilmaheegiioo xanuunsan ayuu ninkeedu safar u baxay, safar abu talxa. qisadaasi meelo badan waan ka sheegay, maxaanan uga sheegayn? dadka aan ugu yeedhayna dadku inay ku daydaan waa asxaabu muxamadin sala allahu calayhi wasalam. waxaan raggana ugu yeedhaynaa waa raggii nebi maxamed la joogay ee la odhan jiray asxaabu muxamed. raggaasaa liibaano horumar raggaasaa gaadhe, war ku dayda ragga. haweenkana waxaan leenahay war dadka horumarka gaadhay waa dadku nebi maxamed soo tarbiyadeeyey. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma dhisin waddooyin waaweyn iyo itisaalaad iyo diyaarado iyo dayaxgaxmeed iyo waxaan zamanka teknolojiga aan u naqayno, berahan guuxaya iyo berahan wax iibinaya iyo berahan ku qaadaya. nebi maxamed uu la soo bixi karaya khayraadka arlada ku jira, laakiin waxaas inuu qiimo lahayn buu garanayey. markaa waxaa nebigu kama shaqayn, birana ma hagaajin, dhulna ma jeexin, waddooyinna ma dillaacin, buurana ma faqin, walaakiin nebi maxamed dad buu ka shaqeeya, dad buu nebigu hagaajiye, dad wuxuu soo saaray raggooguna ay ilaahay ku xidhan yihiin, dumarkooguna ilaahay ku xidhan yihiin. meeshay wax ka jiraan ayaka waa la baray, iyaka meeshay wax ka jiraan ee wax walba laga maamulo waa xagga ilaahay weeyaan. waxau nebigu soo saaray jiil aan dhulkaba ku xidhnayn oo samada ku xidhan oo xagga sare eegaya. halka dadka maanta zamankan dhulkaan eegaynaa, inaku dhulkaan eegaynay ayaa dhibtaa maanta ina baday. hadday dadka muslimiintu ilaahay baryi lahaayeen oo wixii qadar xagga alla uga yimaadana u adkaysan lahaayeen ay sabri lahaayeen, dhibaatada way ka bixi lahaayeen. laana dhibaatadu xagga allay ka timaadaa, dheeftuna xagga ilaahay bay ka timaadaa. inna maca alcusrin yusra baa ilaahay yidhi. haddii ummad ay aragto waxaad ogaataa fudaydka ka dambeeya waa badan yahay, ogow. culaysku waa mid, fudaydkuna uu daba socdaayo waa 2 iyo 3 isdaba socoto weeyaan. umu sulaym radia allahu canha ninkeediibaa safar buu u baxay isagoo ilmihiisii markaa uu xanuunsan yahay. markaa buu soo noqday, safarkii kolkuu soo noqday habeen buu aqalka soo galay. wuxuu ihi umu sulaym, ilmahaygii yaraa waa sidee, bal ka waran. markaasay ku tidhi sidaad kaga tegtay uu ka xasilooni badan yahay, waabaad soo daashay iska nasabay ku tidhi, ilmaha maxaa ku xasuusiya? cajiib. markaase gogoshii bay u dhigtay, cuntay u soo diyaarisay, biyihii bay u keentay, habeenkiina ninkeedii way la seexatay. saqdii dhaxabi iyay ku tidhi, jaarku hadday jaarka kale alaab ay ka soo caariyaystaan oo ay yidhaahdaan alaabtaad naga qaadateen noo soo celiya, mayna u celiyaan baa mise waa inay u diidaan? markaasuu abu talxa yidhi, maya, marka horeba soo iyaka kamay soo caariyaysanaa, waa inay u celiyaan, bal siiqada ninkeeda ay wax uga dhaadhicinaysa eeg. markaasay ku tidhi, ilmaheennii yaraa adiguna maan lahayn, aniguna maan lahayn, ilaahay baa inoo dhiibtay, allihii inoo dhiibtay baa la noqdo uu qaatay, anigu waan sabro waan adkaystee, adiguna iska sabiro, weliba meydkiisi waa ka halkaa ku duuduubane, kacoo iga soo aas bay ku tidhi. taariikhda halkee lagu arkay gabadh halkan ninkeedii ku dul raali gelisay gogoshan, ilmaheegiioo meydan oo halkan u duuduuban yahu u yaallo. bal siday gabadha qadarka u aaminsan tahay eeg. ta kale ninkaygii siday mooraalka iyo niyadda ugu dhistay bal arag haddana ay u tawjiihisay. gabadha muslimadda dadkaasaa la rabaa inaan ku dayanno, oon adduunyada dhibkayga waxba u arkinba. dheefta adduunyadana gabadha muuminaddu waxba uma aragto, dhibaatada adduunkana gabadha muuminadda iimaankana waxba uma aragto. waayo waa nolol yaroo gaaban oo dhimashaana sugaysaba. maxay tahay? aabbahay baa dhintay, hooyaday baa dhimatay, ayaygeen baa dhintay, dadkii aan ka soo jeednoo dhan waan xeraynay, waan dhaadhicinay. alam najcal ilarda kifaata axyaa'an wa amwaata baa ilaahay yidhi. miyaanan dhulkan bini aadanka aan ku fillaysiin
وكفي اللي سيني هذا وحجرنا يا نويان كوا دنتينا أرلا عروش هذي كجران كوا نولد أرلا دوش هذي سعران بايلا هيدي وحيد هذي نجوم الرجال يوردن وان دادي عني هذي قلنا مارين باتريكات كدادي عدولتا مركا قبضة مؤمنة دفت هذي أركتنا ما قاقدو ما كبرتي إلهي بيقول شكر دايو إلهي بيقول دواتا دبعت هذي أركتنا ما أرجع جحدو ما قوستي واي صبرتا واي أتكيستا قدر كي أمن سنتهاي أيضا إلهي بيقول دواني ساتانا الله ينفهم سيو qaabka ninkeedu u soo dhaweysay baa cajiib ah habeenkaas cajiib hooyo weeyaan waad naga qalbi jecelisan tihiin waad naga naxariis badan tihiin ilaahay baa naxariista inagu abuuray ninka waxaan xasuustay dalka intaan socdo inta hooyee fariin ii soo daratay ubadkii baa layga qaatay ii soo ducee ubadkiiba jeel igaga jiro xabsu daa'im lagu xukumay ii soo ducee runtii tiro ma leh laakiin dhibtaa waxaa kaga baxaynaa waa qadarkaan aaminsannahay nu'min biqadaa'ihi wa qadarihi jalla wacalaa wixii ilaahay nagu xukumayna raalli baan ku nahay wixii ilaahay noo qadarayna raalli baan ku nahay gabadha muuminadda waa inay noqoto gabadh saabirad oo sabir badan oo adkaysi badan dhimashadana ilaahay baa qadaray dhalashadana ilaahay baa inoo qadaray marka dadkaasoo ku dayanaa ku daba liibaanaynaay ogaada horumarku ma aha noloshan sidaa dadku ay u fahamsan yihiin ma aha waad aragteen dadka dhulkan aad ugu timaadeen inakoo sheeganayna dhulkeeni dhibaata inay ka dhacday oo soo qaxay ayaad haddana aragteen dadka aad u timaadeen inaad ininku ka dadnimo fiican tihiin ka nolol fiican tihiin ka farxad badan tihiin oo aad weli hooyadiiyo ubadkaygii isla joogaan xaasaskiina ay xaasas yihiin mujtamacan aad u timaadeenna waad aragteen noloshay ku jiraan iyo cidhiirigay ku jiraan yaa u maqan gabadha muuminadda markaa waa inay noqota gabadh saabirada oo muxtasibada abu talxa radia allahu canhu intuu kacay ayuu nabigeenna u tegay calayhi salaatu wasalaam qisadiibuu u sheegay u yihi gabadhii umu sulaym ilmahaygii oo dhintay xalay intay iga qarisay saq dhexa ii sheegtay ilmihiina maaragtaane wuxuu dhex jiifaa maaragtaane gurigu ii dhex yaalla maydkiisii markaabuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ma murugoon mana argagixina wuxuu ku yidhi acarrastumu laylata yaa abaa talxa xalaytoola maaragtaane xaajiyadaada ma aragtayoo ma is aragteen haa markaan iyadii aan is aragnay kadib bay ii warrantay buu yidhi markaabuu nebigu ku yidhi is araggiinni xalay allah inii barakeeyo buu ka yidhi is araggiinni xalay allah inii barakeeyo ducadii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay u aqbalay caloosheedii habeenkiiba ilmaa ilaahay geliyey 9 bilood kadib ayuu nebigu u yeedhay anas oo kaale buu ku yidhi hooyadaa may dhashay may weli ma dhalin wuxuu u sheeg caaw way dhalaysaa wiilna way dhalaysaa ilmaha inta iyadu naaska ayna ku duwin aniga ha la ii keena buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam anas binu maalik wuu sheegay hooyadii yaa umma hooyoy wiil baad dhalaysaa nebigaa soo sheegay calayhi salaatu wasalaam
warka nebi maxamed uu sheegayo maahayn aalad waxa sheegtay ogow waa war saadiqu lmasduuq wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa callamahu shadiidu lquwa duu miratin fastawaa nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam waxa uu sheegay waa waxyi weeyaan maadaamuu nebi maxamed kalaamkiisu waxyi uu yahay ummu sulaym habeenkii waxay diyaar u tahay inay dhalayso wiil weliba ay dhalayso timirta cajwada la yidhaha bay u diyaarsatay markay wiilkii ay dhashay bay ku tiri anasow qabo maradii intay ku duubtay qayd ku laabtay u dhiibtay timirtaa cajwadana nebiga u geebay ku tiri oo iigu raaci timirtii baa nebiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam iyo wiilkii yaraa timirtii buu nebigu afkiisa intuu geliyey ayuu dhareer buu ka dhigay dhareer markaasuu nebigu yarkii yaraa buu afka ugu shubay afkiisa fasamaahu cabdullaahi buu nebigu u bixiyey sufyaan binu cuyayna waa nin culummadii culamaa'ulxadiid ka mid ahaa raximahullah waxa uu yidhi wiilkii yaraa oo waxaa la arkay 9 wiiloo culumu dhalay baa layidhi isaguna markii dambe ilmo barakaysan buu noqday limaada muxuu u barakoobay gabar barakaysan baa dhashay nebi barakaysan baa habeenku caloosha ku dhacayna u duceeyey nebi barakaysan baa dhabtiisa ku qabtay nebi barakaysan baa magaca u bixiyey nebi barakaysan calayhi salaatu wasalaam ayaa qandhuuftiisii afka u geliyey markaasuu dhalay ilmihii 9 wiiloo culamaay ayuu dhalay baa la yidhi maxaa keenay nicmadaas sabirkii baa keenay dulqaad adkaysigay adkaysatay baa keenay inakuna wixii ilaahay noo keeno waan aaminsannahay qadara waa sabraynaa waa inaan diintayna istiqaamo ku yeelanoo sabirno dhalashaduna waa amar ilaahay inuu qofku dhasho waa amar ilaahay inuu dhintona waa amar ilaahay amarka ilaahayna bini aadamku kama baxsan karaan laakiin intaa dhimashadii dhalashada u dhaxaysa ayaa la doonayaa inaad noqoto gabadh muslimada oo mu'minada oo ilaahay taqaano ilaahay raalli gelisay marka kow xaqa koobaad ilaahay baa nagu leh iyo nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam nebigeennu calayhi salaatu wasalaam diinta inoola yimiday waa diin saalixun likulli zamaanin wa likulli makaanin bay yidhahdeen culammadu zaman kastoo la joogo dhaqankii wanaagsanaa ee nebi maxamed uu inoola yimiday unbaa ku habboon in lagu dhaqmo meel kastoo la joogana waxaa ku habboon dhaqankii nebi maxamed in lagu dhaqmo haddii noloshii nebi maxamed la qaato waa la badbaadi haddii noloshuu nebigu noola yimid ee la qaadan waayana waxaad ogaataa adduunkan iyo aakhira waa la khasaari dhaqanka nebi maxamed uu noola yimiday waa dhaqan adiga ku ilaalinaya sharaftaaduu ilaalinaya karaamadaaduu ilaalinaya noloshaaduu ilaalinaya dhaqaalahaaguu ilaalinaya dhiiggaaguu ilaalinaya diinta nebi maxamed saddexdaasay ilaalinaysay qofka bini aadanka dhiiggiisiina way ilaalisay dhaqaalihiisa way ilaalisay sharaftiisa meel lagaga dhacana way ka diido way ilaalisay marka ilaahay caza wajalla han u soo noqono han toobadkeenno oo nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam hadigiisa ha raacno oo noloshii nebi maxamed uu noola yimid waa noloshee awlaadda in la tarbiyadeeyo oo dhaqanka wanaagsan lagu tarbiyadeeyo awlaadda in loo naxariisto aqrac binu xaabis baa nebiga u yimid oo yidhi wuxuu arkay nebigu xasan iyo xuseen intay la joogaan ay la ciyaarayaan isdhunkanayaan markaabuu yidhi yaa rasuul allah oo ciyaalkeena ma dhunkataan markaabuu nebigu yidhi haa anu intaasoo wiil baan dhalo weli midna ma dhunkan buu ku yidhi markaabuu nebigu yidhi maxaan kuu sameeyaa dee haddii qalbigaaga ilaahay naxariistii uu ka saaray haddii qalbigaaga naxariistii laga siibay maxaan kuu sameeyaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka waa inuu ahaado qof naxariis badan oo ilmihiisa u naxariisanaya oo gabdhaha u naxariisanaya oo wiilasha u naxariisanaya ininkana si khaasaba ilaahay baa naxariistaa inigu abuuray oo waa maxay baa tihiin waxaa bashar adduunka jooga oo dhan masnaca lagu sameeyey waa raximkuna gudihiinu ku yaallaa raximku ragga kuma yaallay ininku inigu yaallaa ilmo kasta oo dhasha bilaa ilkuu dhalanaya cunto haddii la siiya ma cuni kareen laakiin ibta uu caanaha ka cabbaya waa naaskiina weeyaan meesha uu tarbiyadda ka qaadanaya waa dhabta hooyada weeyaan hooyadu hadday hagaagtana ilmaha nuu hagaagay hadday hooyadu hallowdana ilmuhu way hallaabayaanoo ogaada nin sheekhoo culummada islaamka ka mid a ayaa isagoo yar oo agoona ayay hooyadii baa layidhi ayay ku dartay hooyadii safar bay ku dartay waxay tidhi safarkaa raac bay ku tidhi safarkaa raac oo magaalada u raac lacagtaana hayso magaalada baqhdaad gal culummada masaajida joogta cilmiga ka soo baro adoo caalim noqday mooyaane ha igu soo noqon bay ku tidhi innagana maanta waxaa laga yaabaa hooyooyinkeen qaarkood inay ilmahooga ku yidhaahdaan
habeen dhaweyta anigoo jooga waddanka magaalada Helsinki nin dhallinyaraa ii yimiday markaasuu dhibtuu soo maray buu iiga warramay markaasaan ogahay dhallinyarada liibiya iyo suudaan iyo rafaadkaas soo maraysa in waalidadooda waddanka ay ku dhibaan oo murug badan ay maaragtaan u horseedaan baan ogahay oo qaarkood waalidadoodii markii la ilmahaagiibuu magafa haystaa aqaladii ay ku jireen intay iibiyeen ayay lacagta u soo diraan si ilmahooga aanan maaragtaan keliyaha loogala bixin markaasaan ogaa naxdinta ku imanaysa waalidada markaasaan ku idhi lacagta safarkaa aad soo gashay kharash meeqaa kugu baxay ii sheeg wuxuu idhi 4,500 baa igu baxday markaasaan ku idhi labadaada waalid ma kaa warqabeen markaad soo baxaysay waxaan la yaabay markuu igu yidhi haa hooyaday aabahay waa iga warqabeen oo iyakaa soo diray buu yidhi hadday waalidada qaarkood ilmahooga ay halaag leeyihiin u halaag naftaada saa lacag u soo dirto waxa dadkii wanaagsanaa ilmahooga intay u shaqeeyaan ee lacag siiyaan ayay ku odhan jireen magaalada Baghdad gal masaajida culimada rabbaaniyiinta ee fadhida cilmiga ka soo baro adigoo caalim oo daaciyo rabbaaniya mooyaane hay u soo noqon bay odhan jireen yarkaa yar marka safarkii uu la socday ayaa niman mooryaana habeenkii dhexda intay u galeen ayaa la qabtay dadkii oo dhan markaasuu qof walba lacagtu watay buu qarsanayaa isagii tuugii horreeyay qabtay baa ku yidhi waryaa wiilka yaroo lacag adu maxaa wadataa ii sheeg markaasuu u sheeguu ku yidhi lacagta intaa leeg baan wataa markaasuu halkay ku jirtaa meeshanaan ku haystaa soo saar uu soo saaray wuu u dhiibay markaasuu ku yidhi adeer lacagta intan leeg maxaad iskaga sheegtay dadku waa kuwa lacagihii qarqarsanaye markaasuu aniga hooyaday baa igu tidhi weligaa been ha sheegin haddaad beenalow noqotaa ilaahayna wuu ku nacayaa aadamiguna wuu ku nacayaan kelmaddii baa ninkii madaxiisa jebisay baa la yidhi lanna markaasuu gacanta qabtay ninkii mooryaanta ugu weynaayo booska ahaayoo meel fadhiya buu u geeyey xoolaha intan leeg ilmahan yar baa wata markaan ku idhi maxaad lacagta u sheegtayna wuxuu igu yidhi hooyaday baa igu tidhi weligaa been ha sheegin haddaad beenala noqotaa ilaahayna wuu ku nacayaa bini aadamkuna way ku nacayaan markaasuu ninkii tuugta ugu weynaa ayaa iska ooyey markaasaa lagu yidhi maxaad loo ido wuxuu yidhi hadday hooyadii oo kale la mid noqon lahayd aniguna tuug ma noqdeen buu yidhi lacagtiisa u celiya yarka yar dadkaana xoolahooga u celiyo sii daaya ina kaxeeyo ilaahay hanu noqonaha toobadkeenna buu yidhi tarbiyadda hooyadu waa taas hooyada wanaagsan tarbiyadda wanaagsan ee ilmaheegu ka qaato mooryaanta ayay bedishaa laakiin hooyadu hadday xumaato ilmaha nebi uu dhalay bay bedishaayo ogaada hooyada wanaagsan tarbiyadda wanaagsan ay ilmaheega siiso mooryaanta ayuu awliye ka dhigaa laakiin hooyada baanaatee ee lunta ee hallowdee xumaata ilmaha nebi ay dhalabay bedishaa daraba allahu mathalan liladiina kafaruu imra'ata nuuxin wa imra'ata luut kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayn fakhaanataahumaa falam yugniyaa canhumaa min allahi shay'a waqiila adkhula annaara maca adaakhiliin qur-aankaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu nooga warramay nebi nuux calayhi salaam maadaamay zawjadiisu ay khaa'intay oo gaalada hoosta ay kala shaqaynaysay ilmaheegiina iyada tarbiyaddeedii buu qaatay ogow ilmaheegii maadaamuu ilmuhu inta badan hooyada ag joogo wakhtiga u badan ilmuhu hooyo ku agbixiyaa ilmihii yaraa tarbiyadda hooyadii baa saamaysay gaalnimuu ku dhintay waa ka yidhi sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala laa caasima alyawma min amri illahi ilaa man raxim waxaala baynahuma almawju fakaana min almuqraqiina waa ka qur-aanka ilaahay kaga warramay ee la yidhi gaaladii buu ka mid noqday oo wixii kuwii qarqoomay buu la qarqoomay baa la yidhi maadaamay hooyadii ay baanaatay tarbiyaddii xumayday hooyadii uu ka qaatay ina nebi isagoo ah haddana aakhiradii buu seegay uu khasaaray marka ilaahay tabaaraka wa tacaala hanu soo noqono ilaahay hanu toobad keenno oo ubadkeenna diinta wanaagsan ha ku tarbiyadayno oo ubadkeenna akhlaaqda wanaagsan dhaqanka wanaagsan ha ku tarbiyadayno dhaqanka wanaagsan khaasatan waddannadan aad timaadeen dadka aad u timaadeen isku dhaqan ma nihin inagu diinteennu waa diin islaama diinteenna islaamku waxay qof walba xuquuq bay saartay xaqna way u yeeshay
xaqa raggiinna aad ku leedihiin haddaad ka weydaanna sabro adkaysta laakiin xaqa raggu ay nagu leeyihiin iska gudo iska ilaaliya maxaa yeelay gabadhu hadday ninkeeda xaqiisa garan weydo cuquubadiiyo inkaartu markaaba ubadkayga ku dhacdaa baa la yidhi halka ninkuna hadduu labadiisa waalid xaqooga u garan waayo cuquubadiiyo inkaartu ilmihiisay ka soo baxdaa gabadhuna hadday ninkeeda ku gadoofasho xaqa ninkeedu ku leeyahay markay garini weyday ku tumato ee xaqiisa inkirto inkaartu ubadkayga kaga soo baxdaa baa la yidhi masheed ma doonayo inaan ka sheekeeyo qisas aan ka maqlay waddanadan aad joogtaan laakiin waxaan ku dhaafayaa ceeb allaha asture ilaahay ceebteenna ha asturo walaalayaal soomaalida waxay tidhahdaa caanadaatiba la daba qabaye han isdaba qabatayno inaan imanay dhulkan ma ahayn runtii xaqiiqatan laakiin mar haddaan imanay sideen ku badbaadaynaa waxaan ku badbaadaynaa waa inaan diinteenna ku adkaano walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun islaamnimadaada ku adkayso oo noqo gabadh muslimada oo 24 saaca muslimada oo mu'minada noqo oo haweenkana ku dadaala maaragtaane inaad ubadka dhallinyarada aad badbaadisaan see ku badbaadinaynaa akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid a in guurka la fudaydiyo dhallinyaradeenni waad arkaysaanoo mujtamaca waxay ku soo dhexdhexeen waa mujtamac laa diin iyo diinba aan lahayn waxbana ka xaaraan maaha mar hadduu qofku diinba aan lahayn wax walba uu iska samayn karaa maadaama mujtamaca ubadkeenni aan la dhex imanay waa inaan guurka fudaydino weeyaan oo nabigeenna moxamed aha calayhi salaatu wassalaam ina moxamed calayhi salaatu wassalaam gabar ka sharaf badan adduunka ma soo marin mana soo mari doonto guurkeeduna fudaydkuu lahaa dhegayso cali buu nabigu u yimid maalin ma guursatay weli may ma guursan buu yidhi de maxaad u guursan weyday oo nebi allow ani ayaa ii guurin ilaa cali agoon buu ahaa nebigaa intii u dambaysa koriyey baa la yidhi laanna nebiga sala allau alay wasalam adeerkii rumaa dhalay markaasuu yidhi yaa anigaa ii guurin markaabuu nabigu ku yidhi anaa kuu guurino faaduma ku siina ka warran buu yidhi faaduma haddaan ku siiyo markaasuu cali sii jeejeesto u xishooday markaabuu nabigu ku yidhi yaa cali waxba ha jeejeesan buu yidhi faaduma ku siiye buu ka yidhi dad u yeedh ma odhan labadoodaa wada hadlaaya markaa buu idhi meherkaygana usoo diyaaray oo nebi allow meherkeen haystaa waad ogtahay xaalkayge wuxuuhi dagaalkii aan maalintaa gallay berihii dagaalka lagu dagaalamaya gaashaanada ee gaalada ka furannay qaybtii aan ku siiyey miyaanan haysan oo nebi allow birtaa wayba daxalaysato daxal baa fuule ayaa iga qaadan markaabuu nebigu uhi taa uun magaalada geeyo iibiyo intay noqotaan faaduma meher uga dhigaynaayo buu yidhi 3 dirham bay noqotay 3 dirham 3 buu u keenay markaa nebiga sal allau alay wasalam markaabuu nebigu yimid faatuma de waan ku bixiyey aabbo oo ayaadi siisay dee cali baan ku siiyey buu yidhi cali baan ku siiyey way jeejeesatay markaa laana gabadha dhallinyarada ee weli aanan la guursan marba hadday aamusto aamuskaasi waa calaamatu ridaa weeyaan sumtuhaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam hee aamuskeedu waa idankeedii buu rasuulku yidhi markaa buu nebigu yihi faatuma qadiifadanna qaata buu ka yidhi barkintanna qaatoo barkada weelkaana biyaha ku dhaasada buu yidhi caawan aroosad baa tees diyaari buu ka yidhi waa muxamed calayhi salaatu wasalaam inantii uu dhalay waa 4 uu nebigu yidhi sayidata faatuma iyo khadiija iyo maryama iyo aasiya ridwaanullaahi calayhim ajmaciin dhammaantood allaha raalli ka wada noqday haweenkaa saalixaadka allaha raalli ka wada noqdee waa 4 haweena baa la yidhi ee haweenka jannada galaaya ugu darajo sarraysa ugu barwaaqaysa buu rasuulku yidhi gabadha 4 ka mid ahayd weliba uu nebigu yihi faatuma sayidata nisaa'i ahliljanna uu gaara si gaaruu nebigu magaceega u sheegay waa gabadha uu nebi maxamed uu leeyahay qadiifadaana ku seexda barkintaana barkada weelkaana biyaha ku dhaasada markaasay u tagtay ninkeedii waa caqdigii baa dhacay deedna uu la aqal galay markaasay faatuma radia allahu canha biyahana iyadaa soo dhaaminaysa baa la yidhi yaa qooshkana waxaa la yidhi burkana markay samaynayso
labada dhagaxee waxa lagu ridqa gacanteeday ku ridqaysay, qooshkana gacanteeday ku xashaysay, markaasaa gacmahaygii baa noqday dhagax, gacmihii baa noqday adayg. cali bnu abi aalib radia allahu canhu isaguna beerta intuu magaalada madiina, beeraley weeyaan, nimanka beeralayda intuu beerahooga tago ayuu biyaha u soo saaraa biyaha, markaasuu baaldigii biyo beerta ugu shubaba xaba timuru mushqaayad u qaataa, gacantiisii baa noqotay isagana dhagax. maalin maalmaha kamida iyo labadoodii baa isku yimid oo waxay yidhaahdeen, cali baa yidhi faatuma bal gacmihiisa ay adkaadeen eeg, markaa bay ku tidhi cali anigana gacmihiisa ay adkaadeen bal arag bay ku tidhi. dadka adduunyada la siiyey jacaylo looma siin, dadka ilaahay uu jeclaa waa dadka rafaadka ku noolaayo ogaada. adduunyada iyaka waa laga ilaalinayey, waa laga ilaalinayey. dadka la siiyey adduunyada lama jeclay ka dhigan tahay. dadka ilaahay uu jecel yahay adduunyada uu ka ilaalshadaa ilaahay diin buu siiya, iyaka diin buu ilaahay siiyaa. marka cali baa maalin soo orday, wuxuu arkay markii dagaal baa dhacay, gaaladii jabtay ayaa dadkoogii, dumarkoogii, raggoogii, addoommahoogii, xoolahoogii baa la soo qaaday, magaalada madiina la keenay. markaabuu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisu u qaybinaya, markaas saasuu usii siinayaa. markaasuu faatuma ahba maanta xoolo badan baa ilaahay u keenay, dad fara badan oo addoomaan asxaabtaa loo qaybinayaa, orada u tago bal inaad wax nooga soo qaado. markaabay soo socotay, nebigay u timiday. markaabuu nebigu saxaabadii ku yidhi iiga barnaya bui inantaydii baa ii timide. markaasay u soo dhowaatay, markay haw sheegtad ay tidhi ayay xishootay, deedna halkaabay istaagtay. markaabuu nebigu uu soo kaco wuxuu hi ha xishoona, waxaad u baahan tahay ii sheeg. markaabay ku tidhi yaa rasuul allah, xoolaha intaa leegna way kuu yimaadeen, waa adiga saxaabadaadii geela iyo xoolaha iyo dahabka iyo lacagta iyo shaqaalaha u qaybinaye, aniga gacmahaygi meenad arkaysay u adkaadeen, dadkana shaqaalo nooga qabo, xoolahana wax naga sii bay ku tidhi. markaabuu nebigu ku yidhi sal ly sl intuu madaxa u taabtay ku yidhi aqalkaa kaaga daba imanaye iska soco buu ku yidhi. markaabay soo noqotay, uu u yimiday. waxau u yimiday baa la yidhi habeenkii iyagoo sii seexanaya oo qadiifadii dhinacan ay goglanayeen, dhinacan ay ka huwanayeen, hoosta ka galay unbay arkay nebigoo dul taagan oo dul jooga. markaasuu cali xishooday, illa waa sodogii baa dul taagane, inantiisiina meesha kula jiraa. markaabuu nabigu ku yidhi calaa rislikumaa buu ka yidhi, madaxa intuu qabtay labadoodii ayuu yidhi ha kicine halkiinaa fadhiya buu yidhi. laa ilaaha ila allah. ha kicina buu ku yidhi halkiina iska jiifa. lacag iyo xoolo iyo dad inii shaqeeya waan ini siin karaa, laakiin waxaan inii siin waayey baan nii sheegi. haddaan ininka ini siiyo waxaa lagu sheekayni doonaa muxamed calayhi salaatu wasalaam, halka saxaabadiisii ay gaajo la dhimanayaan, ayuu hantidii uu dowladda islaamka iyo dhaqaalaha diinta uu ku helay ayuu ubadkiisi iyo reerkiisii siiyey bay odhanayaan buu yidhi. laakiin xoolo aan ini siin lahaa iyo dad inii shaqeeya oon ini siin lahaa wax inaga khayr badan baan inii hayaa. waa maxay? markaad habeenkii aad jiifanaysaan waxaad tidhaahdaan subxaana allah 33 goor dhahada, alxamdu lilah 33 goor dhahada, wallaahu akbarna 34 goor dhahada buu nebigu ka yidhi. adkaar buu siiyey, waa tasbiixaat alfaatimiya ayaa la yidhahdaa. maalinkii oo dhan baa la yidhi daalka qofka muuminka uu soo galo adkaartaa kolkuu habeenkii akhrista baa la yidhi tacabka ilaahay waa ka qaadayaa. sidaasuu nabigeenu sala allahu calayh wasalam qoyskiisa uu adduunyada uga ilaalinayey, guurkooguna sidaasuu u fududaa asxaabta rasuulka. marka maadaama dhul fasaad badan uu maanta adduunka iska jiro, oo fasaadku meel walba uu ku bateen maanta, oo waxyaaba badanna maaragtana dhulkani ay ka jiraan oo fasaada oo dhulkeeni aanan ka jirin, waa inaan dhallinyaradeenna guurka u fudaydino weeyaan. aqaladeennana qur-aanka inaan ku akhrisano suuratu lbaqara, waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam laa tajcaluu buyuutakum maqaabira, aqaladiina qabuuraha ka yeelina buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam, fa ina ashayطaana yanfiru min albeyti aladii tuqra'u fiihi. suuratu lbaqara baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam, aqaladiina qabuuraha ka dhigina. maxaa yeelay aqalka dadka dhex jooga salaada aynan tukanaynin, qur-aanna aynan ku dhex akhrisanaynin, dikrina ay ku dhex samaynaynin, diinna aynan ku dhex baranaynin,
aqalkaasi waa qabri bannaanka ka dhisan dadka ku dhex jirana buu imaam tirmidi waa dad intay lamid yihiin buu yidhi aqaladiina qabuuroo kale ha ka dhigina buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay suuratu lbaqara aqalka dhexdiisa lagu akhrista buu nebigu leeyahay shaydaanku aqalkaa waa ka farxaa waxaan igula dardaarmaynaa lafahaygana kula dardaarmayaa inaad aqaladiinana maaragtaanay aad qur-aanka ku dhex akhrisataan oo ubadkiinana sunnaha nebi maxamed aad bartaan sunnatu tacaam aadaabta cunnada lagu cuno aadaabta loo jiifsado aadaabta dharka loo xidho idanta yaraanteeda asturka bar tarbiyadda islaamku ilmahaaga bar waan ognahay waddannadan duruufo badan inay jiraan laakiin haddaan ilaahay amarkiisa ilaalino ininkan ilaahay bana ilaalina ogaada khayru lkalaami maa qalla wadalla hadal badan waxaa ka khayr badan hadalka yaray murtida leh ilaahay hanu soo noqono ha toobadkeenno oo han iscafino hayse saamaxno xanuun kale oo soomaalida u gaara ayaa jira oo xanuunka qabyaalada alqabaliya dacuuha fa inahaa muntina buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qabyaalada ka tega buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qabyaaladu maaragtaana waa qurmuun buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa qurmuun qabyaaladu waa qurun ayuu nabigeenu sheegay sala allahu aleyh wasalam inay tahay hadalkaa goormuu nebigu yidhi waa markuu abu dar alkhifaari uu bilaal uu ku caayay hooyadii uu yidhi in hooye madow warkan hooyadii madowdahayo buu yidhi ereygii baa nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam deedna markaabuu nebigu abu dar buu ku yidhi weliga adiga jaahiliyadii baa kugu sugan buu yihi khaslad jaahiliyadii baa kugu jirta yaa abaa dar ina fiika khaslatun jaahiliya buu nebigu yidhi ka taga buu nebigu yihi qabyaaladii cunsuriyadda waa qurune buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ka taga buu nebigu leeyahay qabyaaladii waa qurune marka ilaahay hanu soo noqono oo ilaahay caza wajalla hanu toobadkeenno oo maaragtaanay dalkan aad timaadeenna waxyaabaha aan ku badbaadi karnaa waxa weeyaan inaas haysataan saas ku haysataan oo midnimo aad muujisaan oo qoysku midnimo ay muujiyaan oo dadkeenna luqada soomaaliga ku hadla khaasatan midnimo aan muujinno muslimiintuna ay midnimo muujiyaan taasaan maaragtaane aan ku wajihi karnaa dhibaatooyinka maaragtaane maanta adduunyada ka taagan dadka waddankan aad ugu timaadeenna dhaqan wanaagsan tusa akhlaaq wanaagsan kula dhaqma maxaa yeelay waxay haysteen iyaku waxbay naga siiyeen laakiin nicmadda islaamka ilaahay inaka ina siiyey ee adduun iyo aakhira lagu badbaadaayey maxaan ka siinay waa kaas si diintu nolosheenna u timaado oo ubadkeenna inakuba aan u badbaadno raggiinana maaragtaane dacwadda iyo dadaalka diinta maaragtaane u dira dadaalka diinta iyo dacwadda culammada keliya ha ku dhaafine raggiina waa inay diinta ka shaqeeyaan haddaad tirahdaan war tagsiilo noqon 15 saaca u shaqeeyo waxau kuu keenaya inay xaaraan tahay ilahay baa iyo inay xalaal tahay waa inaan qanaaco ku shaqaynaa qanaaco 8 saacadood qofka hadduu adduunyada ka shaqeeyo intiisa kale waktina reerkiisa ha ku bixiyo waktina masaajid iyo dacwadda ha ku bixiyo dardaarankaasaan igula dardaarmayaa wixii wanaag iyo khayr ii soo dhex marina ilaahay baa i waafajiyey wixii akhtaa iyo gafaf iga dhacayna waa wax aniga iga dhacay oo shaydaan xaggiisa ka ahaaday allahna inoo dembi dhaafo allahna ina cafiyo kolley waa ducooyin baad soo qorateen baan u malayn wixii su-aalaad qabtaan anu su-aalaha kama jawaabo caalim mayhi anu caamada ayaan wacdiyaa bifadli illaahi caza wajalla sheekh cali iyo culummo fuqahaaya inila joogta wixii masaa'il diiniyana iyo ka iniiga jawaabaya anigu waan inii ducaynaya marka u dambaysa allahna inagu anfaco